mararka qaar waa inaad ka tanaasushaa aragtiyahaaga guracan ee aad cadowgaaga u hayso si dadkaagu u helaan nolol dhaanta tan ay maanta haystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo weliba si kastood muuqaalkan u daawanaysaanba kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena cusub wuxuu ku saabsan yahay labada dal ee walaalaha ah ee colaadda baan dhex taalo South Korea iyo weliba North Korea. warbixintan quruxda badan leh waxaa idin soo diyaariyay idinla socodsiin doona Aftaax Beelot. haddii aad ku cusubtahay YouTube channelkeena waxaa ka codsanaynaa in aad subscribe tiraadid kamalakana aad furatid si muuqaalada cusub markaan soo gelinay ku soo gaaraan. mahadsanid jaamac Nembas. laba dal oo dad qur ah oo isku af iyo isku dhaqan ah haddana ku kala sugan laba nolol oo kala gedisan una kala fog sida dhulka iyo xidigaha u kala fog yihiin. dal haysta dhaqaale, aqoon, ilbaxnimo, nolol sareysa, xurriyad iyo teknoolojiyad aad u sareysa, iyo dal dadkiisu la mid yihiin dad ku jira xabsiyo, faqriga iyo cabsida wehel u tahay dunida kalena ka xirxiran. jasiirad lamoodka Korean Peninsula waxa ay dhacdaa bariga fog ee qaaradda Asia. waxa ay xuduud la wadaagtaa mandiqadaasi waddamada Ruushka iyo Shiinaha. waxaa ku yaal laba dal oo cadaawad ballaaran dhex taal, mid kastana uu kan kale u arko qayb ka mid ah dalkiisa. waa sida uu dastuurkoodu qorayo. koonfurta Korea oo ah dalka mandiqadaas qaybtiisa koonfureed dhaca, baaxad ahaanna ka yar qaybta waqooyi, ayaa ah mid hoy u ah dad kor u dhaafaya 50 milyan oo qof. milaayiintaasi qof waxay ku hoos nool yihiin dowlad ka mid ah kuwa hormuudka u ah dhaqaalaha iyo teknoolojiyadda iyo wax soo saarka dunida. Kuuriyada Koonfureed waa dalka 11aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, waana mid ka mid ah 20 dal ee nidaamka warshadaha iyo wax soo saarka ku horumaray. waa dalka labaad ee ku jira adeegga caafimaadka ee ugu wanaagsan dunida. waa dalka ay dadkiisu ku naaloonayaan internetka leh xawaaraha ugu sareeya caalamka. waa dal hanaanka caafimaadka ee aadka u sareeya ee ka jira uu sababay in dadkiisu noqdaan kuwa saddexaad ee ugu cimriga dheer ama ugu nolosha wanaagsan dunida. waa dalka shanaad ee alaabta ugu badan dibadda u dhoofsha, waana kan 8aad ee alaabta ugu badan dibadda kala soo dega. koonfurta Korea waa dal hoggaanka u haya teknoolojiyadda dunida iyo hal-abuurka. tan iyo 2014 waxaa loo doortay dalka ugu hal-abuurka sareeya dunida. waa dal dhan walba ka hormaray, kana mida waddamada dabaqadda koowaad kaga jira caalamkan. dalkaas waxaa ku nool 51 milyan oo qof. kalabar dadkaasi waxay ku nool yihiin caasimadda dalka ee Seoul iyo nawaaxigeeda. Seoul waa magaalada afaraad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. shirkadaha ugu waaweyn caalamkan ee teknoolojiyadda iyo wax soo saarka kale ka shaqeeya ayaa laga leeyahay dalkaas, waxaana ka mid ah Samsung, Hyundai, LG, Kia iyo kuwo kale oo badan. waqooyiga Korea waa dalka dhaca qaybta waqooyi ee jasiirad lamoodka Korea, waana kan xuduudda la wadaaga waddamada Ruushka iyo Jaynaha, waana qayb baaxad ahaan ka weyn koonfurta. waana dal labadaasi dal ee xuduudda la wadaaga keliya la leh diblomaasiyad ama xiriir rasmi ah. waxaa ku nool 25 milyan oo qof, kuwaasi oo ku jira nololtan ugu liidato oo la mid ah sida dad xabsiyo ku jira. dunida kale waa kuwo ka xirxiran. internetka oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha aadanaha ayaanan ka jirin si waafi ah dadka dhexdooda. 40% wax ka badan bulshadaasi waa la askareeyaa oo waa ciidan dowladeed. faqri aad u daran iyo xurriyad darro ayaa ka jirta dalkaasi. shaqo kama jirto iyo nolol wanaagsan. waxa ugu weyn ee dadkaasi qalbiyadooda la galshay ayaa ah inay askar dowladeed wada yihiin oo dalkooda u dagaalamaan. tirada dadka waddanka ayaa naaqus ah oo kala bar ka yar tan koonfurta. guud ahaan dadka waqooyiga Korea tiradooda waxaa ka badan inta ku nool Seoul iyo aaggeeda.
qofkii ka soo cararaa waqooyiga ee koonfurta yimaada waxaa la siiyaa hooy, nolol, lacag, shaqo, amni, waxbarasho iyo dhalashada dalka uu xaq u leeyahay. Labada kuuriyo midna way iftiimaysaa, midna waa mugdi aadame inuu ku noolaado uusan jeclayn. waxaana ku wada nool laba bulsho oo hal isir ah oo hal af ku wada hadla. midi waa dimuqraadi oo waxay muhiim u tahay caalamka kale, midna waa hanti wadaag aan nidaamka si dhab ah ula falgelin. midi waxay saaxiib la tahay Maraykanka iyo reer galbeedka, waana tan ifaysa ee ka nolosha wanaagsan xitaa reer galbeedka. midna Shiinaha iyo Ruushka oo aan wax nafla tari karin. waxaa la xusaa shidaalka iyo dhuxusha oo ah agabka ay weli tariinadooda ku shaqeeyaan inay ka helaan Shiinaha. midi dhaba iftiimaya oo mustaqbal wanaagsan leh ayay qaaday, midna dhaba mugdi ah oo cadowtinimo gubtay dadkeeda ayay qaaday. waxaana ugu wacan labadooda xulufada markaa awood ahaan talinaysa tii ay la jirto. mararka qaar waa inaad ka tanaasusho aragtiyahaaga guracan ee aad cadowgaaga u hayso si dadkaagu u helaan nolol dhaanta tan ay maanta haystaan. subscribe Jaamac Nimbas. ha ilaawin inaad comment aad ka bixisid haddii aad ka heshay muuqaalkan La wadaag. asxaabtaadii.